Markii aan joogteeyay istighfaarta, salliga Nabiga iyo ducada muddo 6 bilood ah, waxaa ii rumoobay hammigii iyo riyadii aan lahaa 10 sano ka hor, oo ahayd mar inaan tago xaramka Ilaahay oon ku soo cimraysto, soona dawaafo Safa iyo Marwa, soo arka masjidkii Nabiga, soo cabo biyihii Samsam ka barakeysnaa, ugana soo duceeyo ummadda Islaamka iyo ehelkaygaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ee nagu xiran iyo dhammaan walaalaha cusub ee channelkeena arki doono fiidiyogan dhexdiisa. Sidee tihiin oo wanaagsan tihiin, xaaladihiina inay idin hagaagsan yihiin dhammaan ayaan rajaynayaa. walaalaha culeysyada haysta dhammaantood culeyska Allah ka dulqaado, intii khilaaf u dhex yaalana khilaafkooda Allah xaliyo, maslaxad degdeg Allah u soo dejiyo, inta xanuunsan Allah caafiyo, inta xabsiyada ku jirta Allah ka soo deeyo, inta deemaysan deenta Allah ka gudo, inta walaal ee kurbeysan kurbada Allah ka faydo, inta awlaad la'aan awlaad saalixiin Allah siiyo, inta guur la'aan guur khayr qabo ay ku degaan Allah siiyo biidni Rahmaan. dhammaan walaalaha shaqo la'aanta shaqo khayr qabta Allah u sahlo, inta deemaysan deenta Allah ka gudo, dhammaan walaalaha meelaha ay ka kurbeysan yihiin kurbadooda Allah ka faydo biidni Rahmaan. qof walba meel buu ku ooman yahay, Allah idinka oontiro. Soo dhawaada walaalaha qaaliga, waa qisaskeennii laga arkay xuska iyo dikriga Ilaahay. qofka badiyo xuska iyo dikriga Ilaahay marna ma khasaarayo. waman yattaqillaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min haythu laa yaxtasib. qofka Ilaahay ka cabsoodo waxa uu Ilaahay siinayaa makhraj iyo manfad oo culeyska iyo kurbada ooga baxo. waxa uuna Ilaahay kaaqayaa oo Ilaahay farajkaaga kaaga furayaa meel aadan ka filanaynin. haddaba qisadeena ugu horeyso aan u gudagalno. qisadani waxaa nooga soo sheekeynayso waa gabar ka mid ah asxaabteena. waxa ayna leedahay, waxaan jeclahay muddo 10 sano inaan tago xaramka oon ku soo cimraysto, ku soo dawaafo Safa iyo Marwo, meeshii uu rasuulka marayna aan maro. maxay aheeday aanan soo cabo biyihii Samsamka ahay, aanan uga soo duceeyo xaramka dhexdiisa ehelkayga, waalidkayga iyo walaalahayga iyo naftaydaba. waxay leedahay gabadhaasi 10 sano hammigii aan lahaa ayaa waxaan ku helay 6 bilood gudaheeda, kadib markii aan joogteeyay istighfaarta oo aan xoog u akhrinayay salliga Nabiga oon ku kabayay iyo ducada waxaan ognahay inay qadarka bedesho. waxa ay tiri mar walbeento oo aan ka arko TV-yada xayeysiinta Kacbada ama Kacbada oo laga soo deynayo ama lagu tukanayo, markastoo aan Kacbada arko waxay dhahay Ilaahay waxaan ka bari jiray mar inuu igu arsaaqo. waxaan bilaabay ay dhahday 2023 bishii 8aad inaan mar walbeento Ilaahay baryo oon istighfaarta ku celceliyo, oon salliga Nabiga ku kabo, oon duceysto. awal waan akhrin jiray ay dhahday, balse niyad ahaan iyo xoogga waxaan saaray ay dhahday bisha 8aad. Ilaahay wuxuu igu arsaaqay ay dhahday inaan cimrada tago 2024 bisha 1aad 6deedii inay tiriyaan jecelahay ma sahubo. marka gabadhan waxay leedahay muddo 6 bilood ah oo aan xoogga saaray dikriga Ilaahay ee istighfaarta iyo salliga Nabiga oon ku kabayay iyo ducada. Ilaahay wuxuu igu arsaaqay inaan tagay xaramkiisii, ku soo cimraystay, ku soo duceystay. niyadaydii dhowr iyo 10 sano ka hor sida aheedna Ilaahay ii aqbalay oo i waafajiyay. alxamdulillaah, Ilaahay yaa mahad iska leh. haddana waxay dhahday dikriga Ilaahay waan sii jeclaaday, xoqaladan ku soo kordhiyay waxyaabo badan aan ka faa'iiday. waxay dhahday natiijooyin fara badanna waan sugayaa insha Allah inay nala soo wadaagtana waan jeclaan lahay. walaashaas iyo dhammaan walaalaha kale oo qisaska haayana waan soo dhaweynaynaa biidni Rahmaan. qisadan kalena waxay leedahay gabar ayaa ka sheekeynayso, xabiibtii maalinta aan bilaabay istighfaarta oo aan ka arkay aniga oo ku celcelinaya istighfaarta, waliba aad iyo aad niyadeyda ay ugu raaxaysanayso oo arkay qisooyinka laga faa'iiday istighfaarta niyada ku dhisanayo ayaan bilaabay ay dhahday. alxamdulillaah, waxaan kuugu bishaareynaya oo kuu sheegaya ay dhahday inaan helay ninkii ama rajada aan ka lahay. waxaan u niyeystay ay dhahday istighfaarta inaan ku helo guur. alxamdulillaah,
waxa ay soo doontay ayay dhahday wiil waliba sifooyinkii aan jeclaay oon tabaninayay magaciisa qaabkiisa shaqadiisa qaab dhismeedkiisa kulligiisa reerkiisa sharaftiisa boqolkiiba boqol ayay dhahday sidii ay niyadeyda jecleed ayaa helay istighfaarta markii aan joogtay kaliya ilaahay ayaa mahad iska leh adigana waan kaaga mahad celinaya ee dhammaan asxaabta ku xiran janalkaaga ilaahay khayrka iyo tawfiiqda ha idin waafajiyo ayay leedahay nimcadaas oo dhanna waxaan ku helay ayay dhahday istighfaarta qofkani waxa uu leeyahay asagana qisadani warinaya istighfaarta iyo ducada waa sixirka oo kaleento xaqiiq waa sida sixirka oo kaleento ayuu dhahay waxba ha dhihin shay ayaa mustaxiil ah haysano istighfaarta iyo ducada ilaahay aan u baryayno ma jiro wax mustaxiil ah ilaahay ayaa weyn shay walbana asaga ayaa awooda ayuu leeyahay waxaan dhihi jiray mar walba oo ku duceysan jiray Allahumma arini ajaa'ib qudratik fi tahqiiqi ma atamanna ducadaas ayaan ku celcelin jiray istighfaarta iyo salliga nabigana waan akhrin jiray alxamdulillaah ayuu leeyahay wax kasto oo aan u baahnaay iyo riyo kasto iyo rajo walba oo lahaa way ii xaqiiqooday ilaahay ayaa mahad iska leh rabbil caalamiinka ayaana mahad iska leh ayuu dhahay halkani waxa uu leeyahay ani iyo xaaskeyga waxaan isqabnay oon reer lahayn muddo 18 sano ah alxamdulillaah waxa uu yiri aniga iyo xaaskeyga ama xaajiyadeyda markii aan joogteynay istighfaarta iyo dikriga ilaahay oo aan wada xusi jirnay rabbigeena subxaanahu wa tacaala aadna ugu istighfaarsan jirnay anaga oo wada jirna ilaahay wuxuu nagu arsaaqay 2 awlaad ah wiil iyo gabar hal sano gudaheeda macnaha ilaahay waxa uu ku arsaaqay mataano ilmo mataane ayuu ilaahay siiyay reerkaasi 18 sano oo wada noolaayeen kadib ilaahay waxaan ka baryayaa ayuu yiri inuu awlaadeenaas nooga dhigo awlaad barakeysan alxamdulillaah waxa uu leeyahay ilaahay waxaan uga baryayaa ayuu dhahay reer walbo oo ka xariman nimcada iyo macaanka awlaada ay leedahay in ilaahay awlaada ku arsaaqo waxaan ku boorinayaa ayuu leeyahay nafteyda iyo naftiinaba in aan joogteyno istighfaarta nimcadeeda aad iyo aad ay u balaaran tahay mana aha wax la soo koobi karo oo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا إلهي وحنا وشيغ يا ماشا آيادهاسي إن هدان استغفار تبادنو إلهي أولاد إيا مالك إيا wax walba iyo nimco walba oo nagu siinayo marnabaha qariibsan haduu yiraahdo qof istighfaarti ayaan akhriyay awlaad ayaan ku helay waan istighfaarsaday oo deen iyo xoolo liigu lahaa ayaa iga gudmay waan istighfaarsaday oo nimco iyo barako aan meel ka filayay ayuu ilaahay iigu fududay marnabaha qariibsan daliilka ileen waad haysataa oo waa ayadahaasi quraanka ah qisadani waxa ka sheekeynayso gabar waxa ay leedahay waxaan ahaa gabar weyn oo guurkii ka daahday waxay dadkan ay dhihi jireen ma jirto qofku guursanay qofku u baahan waa daahday waa guumeysooday maxaa u guursan weysa amikaani maxaa u soo gaartay iyo su'aalo fara badan ayaa la weydiin jiray ayay dhahday waxaan iska joogteen jiray ayay dhahday mar walba waan iska duceysan jiray istighfaarta iska akhrisan jiray waa iska alla bariye jiray ilaahay marnaba qulubteeda kama go'in inaan ku kalsoonahay rabbigayga oo xilligii liga qadarin aan guursan doono waxay tiri si aan waqtigeyga u mashquuliyo ayaan waxaan galay dhahday madrasad tahfiid quraanka ah markii aan galay madrasadaasi waxa ila dhigan jirtay ayay dhahday maamo waxayna ila jeclaatay wiilkeedii waxayna iga soo doonatay reerkeygii uuna i guursaday wiilkii waxa uu noqday wiil aad iyo aad aan uga helay oo wuxuu noqday ayay dhahday oo igu munaasab ah macna qof ii dhigmaayo ayuu noqday alxamdulillaah ilaahay hada waxa uu kala siiyay 2 awlaad ah ما شاء الله إليه نو بركة ريركين برواقداس إيه نمعداس نوحان كوهلي دعادي إيه استغفارته قبلني وحا إليه دهي مركي آن جوكتي اخرنت سورة البقرة
inaan salaadaha faradka sidooda aan waajibkooda iyo xilligooda ku tukado sunnooyinkii oo aan raaciyay adkaaru sabaaxi wal masaa oo akhrintooda aan joogteeyay qiyaamu leylka oo nus saac ka hor salaada subax oo tukanayay duco isdaba joog ah waxay dhahdeen nolosheedu waxay isku bedeshay bilcaks waxay dhahdeen culayskii wuxuu isku bedelay fudeed sharti iyo xumaanti waxay isku bedeshay khayr deganaan la'aanti waxay isku bedeshay dhahday deganaan iyo xasilooni iyo sacaado iyo barwaaqo culeysyadiina waxay noqdeen ay dhahday wax fudud oo wada easy ah meeshan farta u fiiqaba easy ay noqonaysay ay dhahday xayaatadii iyo noloshii dhan ayaa ii macaanaatay ay dhahday alxamdulillaah ilaahay dhib oo dhan ayuu iga xifdiyay waxa shucuur aad iyo aad u qariib ay dhahday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala igu manaystay alxamdulillaah waxa ay leedahay oo kaleento waxa ii fududaaday cibaadooyinkii aniga oo yacni aad u dibdhigaynin oo waswaas lahayn oo shaydaan waswaasinaya lahayn in yacni xilli waajibaad walba waxay dhahday xilligiis on time qof reed ayaa noqday ay dhahdo cibaadooyinkiis reed way alxamdulillaah ilaahay ayaa igu karaameeyay ay dhahday nimcadaasi iyo iimaanka macaankiisa aad iyo aad ayaa waxay dhahday yacni ilaahay xaggiisa iyo dhawaashadiisa aad ayaan u jeclaaday ay dhahday alxamdulillaah marka gabadhaas waxay joogtay si akhrinta suuratul baqara waxay dhahday maalin kasta hal mar dhameynay salaadaha faradka ee sunnooyinka ducada adkaaru sabaax wal masaa qiyaamul leyl salaada subax nus saac ka hor tukan jiray ay ilaahay ducadana way laazimtay intaas waxay ku heshay nolosheeda oo dhan furaheedii ayaa farta laga soo saaray oo easy ay noqotay alxamdulillaah sakiina dumaaniina sacaado nolol farxad badan oo yacni khayr leh iyo barwaaqo ayay dhexgashay gabadhaasi diinta iyo dikriga ilaahayna way u macaanaatay waxa uu leeyahay waxaan joogteynayaa muddo 5 sano akhrinta suuratul baqara maalin walba subaxdii ayaan akhriyaa inta aan shaqada u bixin ka hor wallaahi alcadiim wax cunto ma cuno uu dhahay ilaa aan akhriyo suuratul baqara waxa uu dhahay waan u macaansadaa oo joogteynteedii akhrinteeda ayaanba xalaawo iyo dhadhan macaan badan aan ka helaa alxamdulillaah ayuu dhahay nimcada akhrinta quraanka waxa aan ka faa'iiday ma aha wax laga sheekeyn karo xitaa wuxuu dhahay waxaan yacni si aan u joogteeyo oosan iiga baaqanin suuratul baqara waxa uu dhahay cuntadeydii ayaan joojiyay oon xarimay ilaa aan ka akhriyo suuratul baqara sababtana waxa waaye ayuu dhahay faa'iidada aan ka helay weynaanteeda darteeda wiilkani waxa uu leeyahay xaaladeena waxay ahayd xaalad aad iyo aad u adag maanan heli jirin waxaan cunno iyo meel aanan seexano haddaan helno wax aan cunnana ma aanan yacni si fiican uma cuni jirin ayuu dhahay sababtoo ah waxaa jirtay ayuu dhahay xasharaad ama xayawaan ama sida wax quraanshada oo kaleentay oo cunto kasta oon karsano ama naloo keeno nooga dhex daadan jirtay ayuu dhahay wuxuu dhahay markaan sidaas u dhibtooneen muddo waxaan bilownay ayuu dhahay inaan akhrino suuratul baqara iyo laa xawla walaa quwwata illaa billaahi alcaliyi alcadiim uu dhahay markaan muddo aan waday waxaan naga tagtay ayuu dhahay oo aan ka xuroonay muddo 13 sano dhibkiina haystay oo ahaa in yacni cunto kasteento oo gurigaasi laga sameeyo xasharaad ayaa laga dhex arki jiray uu dhahay xasharaad ayaa ku dhex dhalan jiray subxaanallah alxamdulillaah wuxuu dhahay waan ka caafimaadnay bismillaahi maasha allah fareesh ayaan noqonay markii dambe wuxuu dhahay waaba sii joogteynay uu dhahay suuratul baqara akhrinteeni laa xawla walaa quwwata illaa billah akhrinteedi waaba sii joogteynay ayuu dhahay annaga reerkeeni guri la'aanta ahay guri ayuu ilaahay nagu arsaaqay oo guri ayaan gadanay alxamdulillaah ilmihii dhulka wada seexan jiray wuxuu ilaahay fadligiisa nagu siiyay ayuu dhahay canug walba iyo sariirtiisa inuu helo wuxuu yiri fadliga laga helayo suuratul baqara iyo laa xawla walaa quwwata illaa billah ma aha wax la soo koobi karo ilaaha ayaa mahad iska leh mahad fara badan ilaaha ayaa mahad iska leh mahad fara badan ayuu leeyahay qofkaani ilaahay ayaa wajigiisa iyo karamkiisa iyo cadamadiisa ay weyn tahay ilaahay ayaa mahad iska leh suuratul baqara waxa uu dhahay waa daawo waana guul waana horumar ayuu dhahay sababtoo ah 13 sano ku dhawaad xanuunkii aan la xanuunsaneyn oo ahaa sixir iyo wax la mid ah
oo cuntadeena xasharaadka iyo qashinka iska soo dhaxgali jireen meel ay ka imaadeen aan la ogeyn weelkii oo iska daboolanaa waxa iska soo dhaxgalayso u dhahay quraansha iska dhex socoto waxyaabo badan iska dhex ururday cuntadiiba lama cuni karo waa la iska daadinayo dhahay anagoona duruufteena iska adag tahay dad duruufeysan oo waxay cunaan haysanin oo intii ay cuni lahaayeen xasharaad iyo culayska dadkaas haysta waa dareemi kartaa inta uu la eg yahay balse culayskaas wuxuu Ilaahay uga dulqaaday kadib markii ay bilaabeen akhrinta suuratul baqara iyo inay dhahaan la hawla wala quwwata illa billah xeelad iyo xoog midna ma lihin illa Ilaahay xeeladiisa iyo awoodiisa iyo quwwadiisa ma ogay markii ay dhaheen Ilaahay wuu ka dulqaaday reerkii guri la'aanta iyo saboolnimadaysiina guri ayuu ku arsaaqay waliba wuxuu dhahay ilmaheena dhulka ayay seexan jireen ilmihii oo dhan nin walba sariir ayuu yeeshay oo qol fara badan ayaan helnay alxamdulillah nimcadaas oo dhan baqaro iyo la hawla wala quwwata illa billah ayaan ku helnay ayuu leeyahay walaalaha qaaliga insha Allah qisadkeena maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna aad iyo aad ay u mahadsantihiin bariyahana fiidiyoyada like ina saartaan waa ka gaabinaysaan oo si share gareysaan marka insha Allah khayrka si uu kor u kaco oo yaani horay aan u socono biidni raxmaan like ta ka iloobina fiidiyoga una si share gareey walaalaha kaleento channelkana ku xirta maxay ahayd subscribe Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu gafkeena geerideena kulminin Ilaahay waxaan weydiisanaynaa toobatan nasuuxatan qabla al-maut Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo arsaaqo shahaadada an laa ilaaha illa Allah wa anna muhammadar rasuulullah Ilaahay waxaan ka baryaynaa quluubteen inuu xaq ku sugo Allahumma ya muqallibal quluub thabbit quluubana ala diinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنكو صلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن بدينا ذكر جيسا يكو العلن تسلي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فربضا أيوليهي إن أنا دعينا والدكين أنت نور أنت دمتي إلهي وحن كبرينا والدكين إنه نحرس أدوني آخر بسيو أنت دمتي قبورت الله واسعيو قبورت روضة من رياض الجنة الله وريك أنت نور نعمر عافمات بركة لعبادة صوبا الله سيو إن شاء الله أنت ولا لو قربيسن إلهي وحن كبريا إنه قربة إلهي كدول قاضو مركت فرحة وبدلو علايس كان فضيت وبدلو آمين تاني آمين تملائكة الله كل ميو أرلدان كدعيني سمد الله كأقبلو آمين يا ربي دمانتينا بدعاء الله أنه أقبله وأن السلام ولا لا خيرك جهله وسا خيرك وجعشهين الله يدين جعلاده جنة جزدين الجنة الله كدغو دمانتينا كوي جنة الفردوس الأعلى كوذا كل ما الله نغدغو حوتك نبينا كوذا عبو صلى الله عليه وسلم آمين دعاء صوّد قرأ ولا لها إن شاء الله خيرك جعل سود وهذا يعني اللي هاي جنالك وجنال كيني إن شاء الله إنه كور نقضنا دمانتين أي فائدة نوود جرتها بين الرحمن لايك تنصار سين الشير قرية سبسكرايب كانوا كحرتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.